بسم الله الرحمن الرحيم فضلك صلاة الضحى أما صلاة الأوابين وصلاة لتكذا برقضة وسنة مؤكدة نبي أيا سمين عليه الصلاة والسلام سيدوك لو نبي فري أما وكل دردارمي أصحابتي سيني تكذان نبي عليه الصلاة والسلام وحنو شيغي حبين كستو أن نغمد أمركان وبريسانو إن صدقة لقول لي هاي صدقة داسي وحيالها نغب دي كران وحكمد تسبيح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيا كمده sidoo kale waxaa kamid ah wanaaga oo la isfaro xumaanta oo la iska reebo laakiin calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay waxaasoo dhan waxaa naga gudi kara laba ragcadood oo aanu tukano xilliga barqada waqtiga salaatu duha waa marka ay qoraxda saas u soo baxdo wax yar kor u qaadmato in waran la eg xilliga ugu fiican ee la tukadana waa xilliga qoraxda ugu kulushahay inta aan duhurka la gaarin ka hor weeye tirada ugu yar ee la tukan karo waa laba ragcadood laakiin waxaad tukan kartaa 4 6 8 iyo inta aad doontid baad tukan kartaa maxaa yeelay Aisha radhiyallahu anha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka soo warisay inuu 4 tukan jiray intuu doonana intuu ilaahay doonana uu ku dari jiray saas darteed tiro go'an ma lahan intii ku fudud ayaa tukanaysa fadliga ay leedahay salaatu duha wala lama soo koobi karo waxa taqaanaan xadiiskii Abi Hurayra radhiyallahu anhu uu lahaa nabiga wuxuu dardaarmay khaliili wuxuu dardaarmay saddex aan ka tagin ilaa aan ka dhimanayo saddexdaasi waxa kamid ahayd salaatu duha ayaa kamid ahayd Allahu akbar wa dardaaran aad iyo aad culus nabiga calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmay sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kaaga filnaanayaa umuurahaada ayuu kaaga filnaanayaa xadiisul qudsi ilaahay wuxuu ku leeyahay ibnu aadam uu ituko ragcooyin ituko maalinta bilowgeeda aakhirkeeda anaa kaaga filan laba ragcadood ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tukatay ayaa waxa laga yaabaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala hawlaha dhan kaaga filnaado salaada waxay u dhigantaa xaj ama umra ay u dhigantaa salaatu duha ajirkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka salaad subax jamaacada la tukada daytana fadhiista asagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala xusaya ilaa ay qoraxda ka soo baxayso haddana tukada laba ragcadood waxay la ajir tahay xajatun wa umratun taamah ayuu leeyahay xajo iyo umro buuxda ay la mid tahay walaalayaal ka faa'iideysta ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka idin waafajiyo cid walbana si gaarsiya iskuna daya inaad mar walba tukataan laba ragcadood oo barqada ah ilaahay ugu dhawaanaysa marka aad ogaatay fadliga ay leedahay salaatu duha waxaa muhiim ah inaad isweydiisid sidee loo tukadaa salaatu duha walaalayaal salaadaha kale waxba kagama duwano waxaana tusaale u soo qaadanaynaa sida loo tukado sunnooyinka tusaale kale laba ragcadood oo sunno ah sidaad u tukan jirtay oo kale ayaad u tukanaysaa waxaase muhiim ah in aad niyeysatid inaad tukanaysid salaatu duha niyadana afka lagama yiraahdo qalbiga ayaa lagu haystaa waxaad niyeysatay inaad tukanaysid salaatu duha salaadii ayaad xiratay Allahu akbar ayaa tiri xasuusnow salaadani kor looma qaado oo qiraa'ada kor looma akhriyo hoos ayaa loo dhigtaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ayaad akhrinaysaa marka aad dhamaysid suurad kale ayaad ku daraysaa haddaad awoodid haddaadan aqoonin ama aadan ka gaarsiin karinna faatixada ayaa kugu filan maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay inaad si wanaagsan u akhrisid qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad niyadaada u haysid kadib waad rukuucaysaa sida salaadaha kale aad u rukuucdid waxaadna oranaysaa subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim waad soo kacaysaa waxaad oranaysaa samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamd xasuusnow salaadan jamaaca laguma tukado waxaana fiican inaad gurigaada ku tukatid haddii kale meesha aad markaa joogtid inaad ku tukatid ayaa muhiim ah sujuuda iyo rukuucdana aad iyo aad ayaad u qurxinaysaa markaa sujuudidna waxaad oranaysaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa waad soo fadhiisanaysaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waxaad oranaysaa rabbi ighfirlii rabbi ighfirlii rabbi ighfirlii adigoo aan degdegaynin mar labaad ayaad sujuudaysaa ragcaddii labaad ayaad u kacaysaa faatixadii ayaad soo akhrinaysaa intii oo kale ayaad soo samaynaysaa intaa kadib waxaad u fadhiisanaysaa ataxiyaadkii oo aad akhrinaysid kadibna ataxiyaadka dhexdiisa ayaad ku ducaysanaysaa nabigana calayhi salaatu wasalaam ku sallinaysaa kadib salaadii ayaad ka baxaysaa sidaasi waxaad ku gudatay laba ragcadood oo fadli badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajaynaya inuu ka aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal hanagu hanuuniyo wanaagga iyo khayrka mar walba maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam khayr ma jiro ilaa wuu noo sheegay sharna ma jiro ilaa wuu nooga digay
marka qofka waxaa fiican inuu ku dadaalo. way dhici kartaa mararka qaarkood inaad ka caajistid, laakiin mar walba isxasuusi, kuna dadaal ilaa ay naftaada la qabsanayso. naftayda iyo naftiina waxaan la dardaarmayaa inaan ku dadaalno. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu khayraadkana waafajiyo, walaalaha kale la wadaag. ilaahay subxaana wa tacaala ha ku sharfo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.